maanta marka laga sheekeynayo Microsoft waxa maanta dadka wax tusaale wax u soo qaadan Bill Gates maanta qof maanta Bill Gates ka shaqeeya okay Bill Gates yani طبعا dhinaca technology aad ugu guuleystay tusaale weyn waay shirkad ugu sareyso maanta caalamka dhinaca kombiyuutarada oo maamula kambaniyo badan iyo mustaqbal badan iyo vision badan uu leeyahay laakiin maxaa ka horeeyay Microsoft inuu dhisa kaliya 2 sano ku qaadatay kan koodiranka oo wixii la mid ah asigii team anisan kalsooni haystay kalsoonidaas oo ah inay wax sameyn karaan oo positive kaas markay haysteen ay meesha taagiin ka faa'iideysteen ku gaareen hadii waxaas aysan haysan lahayn ma gaari lahayn sadafan zaman sidaas arimoda ugu waaweyn waxa kalsoonida lagu kobcin karo taa waxyaalo kale oo badan waa jira oo kamid ah qofka inuu training qaato sida adinka oo kale wana oo kale mentorka asmiinaysan oo kale qofka maxalli jiray adduunka laga kala aqoon badna laakiin information ka qofka uu helaya